وزارة gaadiidka iyo duulista hawada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xafiis ka furatay dhowr iyo 20 sano kadib markii ay burburtay dawladda militariga ahayd ee Soomaaliya hasaatee iminka ay dawladnimada Soomaaliya aga dhigatay ayaa xafiis wasaaraddaas ay leedahay waxa xariga ka jaray Maxamed Sugaal Ismaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo horumarinta munaasabadaasi waxa goobjoog ka ah mas'uuliin ay kamid ahaayeen gudoomiyaha degmada Jowhar Maxamed Ali Muudey wareen waxa munaasabada ka hadlay isku duwa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Xasan Ali Caadle isagoo ku dheeraaday waxqabadka hay'adaasi waxaan ku dadaali doonaa inaan garoonka ka shaqaysiiyo garoomada kala aan abuuro oo degmooyinka kale garoomada la inaan garoomada wasaaradana waa soo qalanay haddana aad baan ugu shaqayn doonaa sidoo kale wadooyinka barfasana waxaan ka qaban doonaa annaga waxayna waa registration rekoorka gaadiidka taarga ma leeyahay laysan ma leeyahay waxaan wada shaqayn doonaa taliyaha ilaalada wadooyinka ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan halkaas ka hadlay taliyaha ciidamada taraafikada gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo qodbooyinkaasi oo soo gunaanaday gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada iyo horumarinta gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Sugaal Ismaan waxaan maanta ku soo biiray hadda maanta aan dib u bilownay xafiiskii duulista hawada iyo gaadiidka dhulka ciidanka nabadgelyadu waxa way shaqadiisu inuu sharciga ilaalisho waxaan idhaa anagu waxaan sharciga waxaan abtuugaan yiraahdaa qofka kale tood waa jecel yahay sharciga waxaan rajaynayaa wasaaradaha kale sidaas oo kale in ayagana ay ka soo qayb galaan gobolka si ay xafiis ugu yeeshaan oo arrimaha iyo howlaha wasaaradaha dawladda ay dhameystir u noqdaan sadarteed waxaan u habalnaynayaa maanta furitaanka wasuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dhinaca kale seminar soconaya muddo 4 cisho ah oo ay si wada jir ah soo qaban qaabiyeen wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda CRD ayaa ka furmay magaalada Jowhar iyo seminarkani lagu magacaabay xalinta khilaafaadka معرفنا إن ugu halkaas ka hadlay Muna Xasan oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda CRD waxayna ku dheeraatay waxqabadka hay'adaasi gudbeyno maanta waxaan taaganahay xalinta khilaafaadka yani bulshada Soomaaliyeed waa ognahay khilaafaad fara badan soo kala dhaxgalay 24 sano la isdilaayay wuxuu ka bilaabanayay dilka iyo dhibaatooyinka wuxuu ka bilaabanayay khilaaf yar oo ka dhaxdashay marka 20 sano khilaafaada dhowr iyo 20 sano canigi ku dhashay ama wiilkii ku soo barbaaray ama gabadhii ku soo barbaartay waxaan filayaa waxay ku barbaartay wax muqaalifa ayay ku barbaartay muqaalifada ay ku barbaartay ayaa waxaan rabnaa mujtamaca maanta in aanu wax ka fahamsiino mar Abubakar Maxamed Bacadle raadiyo TV qaranka Soomaaliyeed gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Jowhar